flight garaysay balantuna waxay ahayd habeenka talaadada inay dib u flight garayso ay dib ugu laabato familigeeda ilmaheedii ay holidaydeeda halkaas ka sii wadato kadib markay ay qanciso dadka bukaanadeeda laakiin waxa dhaci doona waa wax anigana iga maskaxdeeda iga yaabi idinkuna bal waa arki doonaa soo koro diyaaradda waxaan ka degaynaa Mareykanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو صنقدو ناكسولا لدي قاريغا وانا ولاشين هوداني جالكا ديغا داونيسان وميشين يد نوغا باراتين هودان اونلاين داود هدايتا markii ugu horeyso soo booqatid soo dhow gacmo furays martiinin hadaa jeceshay qosooyinka caalamka meeshiidii joogta subscribe noo saar gambaleelka furuxu ka caawinaya inaad noqotid daawadaha ugu horeeya wixii talo iyo tusaale mise ra'yi aad qabtid qaybta commentiga mise su'aalaha ahaatay qaybta commentiga daawada nagula wadaag وانا لقود دالا إن شاء الله إن لقاعد أسوي جواب ولا قنعيه فيديو كان دوك عجبين ما دام وقتي بدن إيجا سوق لي لايك فرو بدن صار فري ما هنو كل شو لايك توما سنتين شارتنا وعدين كينا إن شاء الله فيديو قد داوتي نفضل أصحاب هذه فاميلي جاي مسوي براه بالشدة هذا نو شير كريه واحد ثانك يو سايدين سو شيء قصة داني attention بدن أي أوباهن تهاي أري والبا أو عنده inaad ifahantiin oo ila jaan qaadin isku daya aniguna waxaan isku dadaalay inaan qisada smooth idin kaga dhigo si aad u fahantaan because waxyaabaha one of the reasons aan qisooyinka idin kugu faahfaahiyo erayada idin kugu kala dhigdhigayo because hadhow tool comment waxaad igu soo qortay hoday halkaas maxaa ka waday hoday saasa you know si su'aal dhanbe u iimaan idinkoo qanacsan qisada uga tagtaan ama asantiin saa idin soo sheegay qisadan dhamaadkeeda ay wax walba laakiin isbedeli doonaan waxa dhacday axad maalin axada oo habeen isniin soo galayso 28 January 2015 qisadeen waxay ku socotaa naag magaceeda la yiraahdo Teresa Sievers sawirkeeda waa u jeeteen waxay ku dhalatay ee ku soo kortay ee ku soo wax baratay ayadii familigeedaba New York ay ku dhalatay ku soo barbaartay wax ku soo baratay ilaa heer jaamacadeed kadib gabadhani marka iyada iyo ninkeeda iyo caruurteeda ayaa safray waxay aadeen as a holiday oo hawo gadis amal ayaa waxay u aadeen New York laakiin waxay degantahay Teresa Florida okay wanageedina waxay ku dhalatay ku soo baratay New York waxaa degan Teresa familygeeda hooyadeed aabaheed walaaladeed ina New York degayiin laakiin ayada iyo ninkeeda iyo caruurteeda laba hablood ay dhashay waxay ku nool yihiin Florida so qisadan maalinka dhacayso she's supposed to inay joogto New York fahanteen oo de ku holiday amal familygeeda ugu tageen ayada ninkeeda ilmaheedu laakiin ayada maadaama ay lahayd balamo oo bukaano badan ay sugayeen isniinta ay soo flight gareysay maalin axad 28 January 2015 waxayna gurigeeda timid around 9 p.m. markay saacadu tahay okay habeennimadii waaya habeenkii isniintu soo galisay 9kii habeenimo ama 3 saac habeen ayay Florida International Airport ay ka soo degtay sababtoo ah Dr. Teresa caado uma lahan in ay ma aragtay soo daahdo bla 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 habeennimadii almuhiim markay airportka ka soo degtay ninkeedii bay wacdo waxay ku tiri hey Mark ninkeedana Mark ayaa la dhahay barasho wanaagsan sawirkiisa waad arki doontaan koleeto Mark marka way wacdo waxay ku tiri waa nabad imid Florida ayaan joogaa tamam ninkeeda iyo ayada waa telefonkii ugu dambeeyay ay noloshooda ismaqli doonaan Teresa sidii balanta ahayd ilaa waxay gobol to gobol ay u soo flight gareysaa waxay ahayd inay isniinta subaxda ay shaqadeeda ay gasho oo ma aragtay ay bukaanadeeda deeyno caawiso kadib Tuesday night inay flight gareysaa ee arbaca ku aado New York المهم subaxnimadii waxay la lahayd bukaanadeeda balanta koowaad waxay ahayd 9 am morning laakiin Dr. Teresa ma aysan tagin hospitaalka caadana uma aysan lahayn inay taahdo oo ma ahayn dadka balamaha ku xun dad waxa jira balamaha ku xun laakiin ayada ma ahayn dadka balamaha ku xun
طبعا waxaa halkaas kaaga soo baxaya naag de maaragtay ay wada shaqeeyaan oo secretary-geeda oo magaceeda la yiraahdo Sandra ayaa isku dayday in ay la xiriirto Doctoressa Teresa sababta ay ula xiriireysana dabcan waynu ognahay oo waxay tahay marka maadaama ilaahay kuma samadiiday ay leedahay balamo badan way dhaqtarada marka secretary-deedii weeyaan waxa wacayso oo magaceeda la yiraahdo Sandra sawirkeeda koleeto waa ujeeda way wacday lagama qabanayo gurigay wacday lagama qabanayo dabcan Sandra waxay ku qasbanaatay maadaama meesha bukaano ay joogaan bukaanadiina ay weydiinayeen secretary-deedii ay dhaweyndo goormay imanaysaa dhaqtaradii waa daahnay waa xanuunsan ina waa ogtay dadku markuu xanuunsanaa samirkaaga ka yar Sandra waxay cala tool markiiba ee wacday ninkeeda waxay ku tiri Doctoressa Teresa xalay miyaysan soo bixin markaasuu ku no way soo baxday wayna naba tagtay saaga miyaysan soo shaqo tagin maysan soo shaqo tagin iyo how si uu soo shaqo tagin waxay ku tiri wallahi anigu ma ogi sababta uu soo shaqo tagay laakiin ma soo shaqo tagin telefoonka guriga iyo telefoonkeeda telefoonka oo mobilka ma qabanayso guriga ma tagaa oo ma soo hubiyaa yani what's going on haday nabad qabto maybe xanuunsataaba dhici karto ama hurdo ay la tagtay daaleed markaas uu ku yiri ninkii Mark dhaqtaradan Teresa ninka qabo waa Mark ya wuxuu ku yiri no adiga guriga tagna iska joog ana kugu soo warcelinayo Mark oo Teresa ninkeeda wuxuu wacay nin kale oo asagana dhaqtar ah oo ay daris yihiin oo asagana Mark la dhaho ayuu wacay wuxuu ku yiri hey labadan rag marka Mark baa lahaa laakiin Markiga oo gabadha ninka qaba anaga muhiimna oo Markigan just waa ergale waa almuhim Teresa ninkeedii baa soo wacay ninkii dariska ahaa Mark oo asagana dhaqtar ah wuxuu ku yiri xaaskayga xalay toolay soo hoyatay telefoonka ma qabanayso saakana balamo badan ayay lahayd bukaanadiina waa la sugayaa so please guriga inta baxdid ma tagi kartaa gurigayga oo bal ku gargaraa in case inay ka furto ninkii okay buu yiri doctorkii kale uu soo baxay dariska ahaa albaabkii uu gargaraacay lagama furayo albaabka si kaste Mark ayuu ku celi wuxuu yiri albaabka si kasta u garaacay waa qeyli banaanka istaagay lagama furaayo ninkeedii marka wuxuu ku yiri okay orod oo backside ka doorka albaabka oo garage-ka Mareykanku xiliyihiin baa la yiri garaashyadooda guryahoodu xilay parking gooniyo inside iyo outside buu leeyihiin parkiga inside ka security code buu leeyahay number 4 number miya mise wax saas uu leeyahay la dhahay soo wuxuu ku yiri orod oo qaybta parking-ka tag oo garage-ka code-kii buu siinay sidii buu ku galay gurigu sida normal uu ahaay uu raadiyay uu wacay wuxuu markuu marayo qaybta kitchen-ka ayaa dabcan wuxuu arkay Teresa oo dhulka jiifto oo dhiigeediiba xataa qayb oo qalalay madaxeeduna uu burburay subhanallah dabcan ninkii qaylo ninkeedii uu sheegay uu ka jaray isla markii wuxuu wacay laamaha amniga dabcan laamaha amniga markay imaadeen isla markiiba qoftan waaba qof dhiigeediiba qalalay qayb oo madaxeedii burbursan yahay waa la qaaday Mark iyo family oo dhan naxdin dabcan Mark labadiisii hablood iyo dabcan Teresa family-geediiba hal flight ay soo wada qaateen way imaadeen gurigii Teresa dabcan waa ku daysay haddaba Mark iyo Teresa waxaan ka barano si isku barteen iyo taariikh nololeedkooda Mark iyo Teresa waxay isbarteen taariikhda markay ay 2003 ayay isbarteen wuxuuna ahaa baa la yiri jaceelka aragtida koobaad waa ku arkay waa ku caashaq anaga tiin dambe baaraadana waxaas ma qorno okay qaamuuskina nagu ma jirahay ha iiga bixina balanta okay markay isbaranayeen Mark wuxuu ahaa nurse ayadana dabcan waxay ahayd dhaqtarad fahanteen asaga nurse oo ahaa ayadana waxay ahayd dhaqtarad waliba waxay ahayd dhaqtarad markii uu la furay oo nin hore ayaa soo qabi jiray Teresa laakiin ninkan Mark xaaskiisa koobaad waa Teresa laakiin Teresa nin hore ayay soo kala tageen oo waxay ahayd gabar garooba laakiin ilmihiisanin ayay ahayd dabcan way markay is arkeen way is jeclaadeen dabcan muddo yar kadib way iskursadeen Doctoressa Teresa waxay ahayd doctoressad caan ah ilaa iyo xad oo TV showyada laga casuumo barnaamijyo laga casuumo majalladaha مجلة journal لما مجلة
adi majalad Soomaali waxa lagu dhahaa isoo sheeg majalad wax buugaga fashionska dhaqaatiirta waxaas lagu qoro marka coverka kore xataa ayaa lagu soo dhajin jiray yani caanimadeedu heer ay marayso okay so markay isguursadeen noloshoodii dabcan waxay sii noqotay VIP way ka sii fiicnaatay meeshii ay shalay ay joogtay laakiin gabadhani dabcan horumarka iyo guusha waxaasoo dhan way ka hor ninka way uga soo horeysay okay asaaba nurse ahay laakiin way isla koreen ana loved nin iyo naag markay isguursadaan wax wada qabsado taas waa support garaya fikirkaas yani grow together kadib markii ilaahay waa qafuur raxiim wuxuu u furfuray faraj arsaaqdi baa la barakeeyay waa arsaaqdi baa waasic noqotay guri VIP ayaa waxay ka gateen area ay degaan kaliya dadka maal qabeenada oo laga sheekin karo sawirkiis kale aad arki kartaan laba gabdhoodna way u dhashay nolol fiican ayay ku jireen kadib markii guriga gateen kadib haddana waxay gateen hospital private oo ayaga ay leeyihiin Doctoressa Teresa waa doctorka acshaabka misaba dhaqaatiirtan ma ahan normalkii loo tagay daawooyinka dadka u qor ma ahan waa dhaqaatiirta dadka ku daaweyso geedaha iyo dhirta waxyaabaha dhaqtarada mutakhasiskeedaba saas ahay ma ahayn dhaqtar oo maaragtay intuu tagtay daawooyinka ku soo qoreen la qabsanay ma ahan doctor acshaabeed ama si dhaqaatiirta geedaha iyo dhirta dadka ku daaweyso ay ahayd isbitaalka ay furatay marka isbitaal takhasuskiisu uu ahay geedaha iyo dhirta iyo waxyaabaha naturalka dadka in lagu daaweeyo ay ahayd dabcan maadadaasi ama si takhasuskaas oo takhasus jaamacada looga soo baxmaha kaliya wax la iska maaragtay mal awaalan karo isbitaalkii furteen isbitaalkoodii dabcan wuxuu noqday successful awalna gabadhan caanimo iyo magac baa u sii dheeray markay ku sii dartay business khaaskii ayada ay leedahayna dabcan guusheedii iyo wixii oo dhan way ay sii laba jibaarmeen nolol farxad leh awlaad qurux badan reer waxay ahaayeen couple oo lagu daysado jaceylkooda iyo kalsoonidooda iyo sida horumarka ay gaareen lagu dayanayo ayay ahaayeen labadaas qof kadib waxay go'aamiyeen inay safar yar oo gaaban iska aadaan ay Teresa familygeeda iska la soo qaadato waqti ilmaheeda iyo ninkeedana ay u noqdaan hawo gadis show ay ahayd laakiin sidaan hore dhaca videogeedii kugu soo sheega waxay tahay gabadhani axadii habeennimadii axada ayay soo laabatay sababtoo ah Mondayda waxay lahayd balamo iyo barnaamijyo iyo dad bukaana ay balamo la lahayd isbitaalkan ay gateen idin sheegayo ownerka waa Teresa ayada iska leh kaaninku ma lahan laakiin ninku wuxuu ka yahay manager faanto ninkeedu manager buu ka yahay isbitaalka ayadana ayaa iska leh ownerka dhaqtarada dadka caawinaysa oo maaragtayna ayada ayaa isku ahayd dabcan airport Florida markii ka soo degtay kaameradihii airport ku yaala dabcan way wada qabteen qof iska normal bay ahayd guriga markii meedka laga saaray kadib waxa markii gurigii la baaray oo dhinac walba laga fiiriyay jewelry hadhihin lacag cash hadhihin bastoolada uu ninkani lahaay oo mark oo lahaay oo ruqsadaysan hadhihin oo saas u wada safan because wadankaas hadii qofku maal qabeen uu yahay uu ku qasban yahay bastoolad in uu soo gato oo guriga ku haysto dabcan sharciyeysan si in case because qofku marka maal qabeen aatay dadaadan aqooninaad cadow kugu oo noloshii kugu qor ama dadaad taqaaniin dad ku soo adeegsan karaan tamam sida Teresa ku dhici doontii kumanaan iyo malaayiin qof oo kale ku dhacday so marka bastooladihiisii ninkan marka uu lahaay way yaaleen handbageedii ilaa walletkeedii oo cash ku jiray $10 oo cash ku wadatay visa cards ku jireen waxba lama qaadani halkaas waxa marka dambi baarayaasha ooga soo baxay baa waxay tahay dilkan